ayaa ka socota magaalada Nairobi 20 madaxweyne oo ka kala yimid qaaradda Afrika ayaa ka qayb galaya xafladda oo ka dhacaysa garoon aad u weyn. goobta ayaa lagu dhaariyay madaxweynaha cusub William Ruto. ninka ay digraagu u magacaabeen ninka wadaxaajoodka u qaabilsan ayaa ka hadlay mustaqbalka wadahadalka ay yeelanayaan dowladda federaalka Itoobiya, wuxuuna u sheegay BBC-da in nabad lagu gaari karo wadahadal. Getachew Reda ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaaraha Itoobiya iyo madaxweynaha Eritrea Afwerki burburka bishii hore ku yimid xabad joojin lagu dhawaaqay bishii Maarso. aad ayay nasiib darro u tahay in dagaalku sii socdo, laakiin weli waxaan ku adkaysanaynaa xal siyaasadeed oo keliya ayaa looga bixi karaa. wadahadalna waa arrinta ugu wanaagsan magaalada. ra-iisul wasaaraha Armenia Nikol Pashinyan ayaa sheegay in 49 askari oo reer Armenia ah ay ku dhinteen colaad soo cusboonaatay oo xalay ka dhex qaraxday Armenia iyo dalka ay dariska yihiin ee Azerbaijan. wuxuu sheegay in dagaalku weli ka soconayo xuduudda, laakiin haatan uu yara qaboobayo. labada dal ayaa midka kale waxa uu ku eedeynaya colaadda bilaabantay. ugu dambeyntiina boqorka Charles iyo boqoradda ayaa maanta booqan doona waqooyiga Ireland, waxaana ay fariin tacsiya gaarsiin doonaan dadka, waxayna halkaas kula kulmi doonaan siyaasiyiinta. kumanaan dad ayaa safaf ugu jira naxashka boqoradda oo yaalla magaalada Edinburgh ee caasimadda Scotland. warkii duhurnimo ayaa intaa nooga eg mar kale. cabdifataax idinku celiyo. aad baad u mahadsantahay maxamed shiil xasan ayuu kaasi wararka caalamka qodobadii ugu door karoona ayuu nala socodsiinaya. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. aynu ku bilownay sida aad warka caalamkaba ku maqlayseen, madaxweynaha cusub ee Kenya Dr. William Samoei Ruto ayaa si rasmi ah waxaa lagu dhaariyay xilkaasi kadib munaasabada haatan ka socota magaalada tan Nairobi. kumanaan qof ayaa waxay ka qayb galayaan xafladdaasi isugu jirta dhaarinta iyo caleemasaarka madaxweynaha cusub ee Kenya. madaxweynayaal iyo ra'iisul wasaarayaal gaaraya 20 ayaa xafladdaasi ka qayb galaya, waxaana ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo dhigiisa Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle. Ruto waxuu noqonayaa madaxweynaha shanaad ee Kenya, kaasoo tan iyo sanadii 2013 ahaa madaxweyne ku-xigeenka dalka. waxauna doorashadii dhaweyd uga adkaaday hogaamiyihii mucaaradka, marna soo noqday ra'iisul wasaaraha dalka Raila Odinga. haddaba xafladdaasi caleemasaarka iyo dhaarinta isugu jirta ee Ruto waxaa ku sugan waryahayaga Kawthar Maxamed Cabdulaahi oo goor dhaweyd khadka teleefanka igu warantay. cabdifataax madaxweynaha shanaad ee wadankan Kenya William Samoei Ruto iyo ku-xigeenkiisa Rigathi Gachagua goordhow waxaa si rasmi ah loogu dhaariyay xilka madaxweynaha wadankan Kenya iyo ku-xigeenkiisa. waxaana weli socota xafladii lagu wareejiyay dastuurkii iyo seeftii. cabdifaaxow martida maanta timid lagu cusumay xafladda dhaarinta madaxweyne William Ruto way badan yihiin dabcan, waxayna isugu jiraan safiirada wadamo kala duwan, erdooyin gaar ah, wasiir dowlayaal, ra'iisul wasaarayaal, madaxweyne ku-xigeenno, xitaa waxaa jooga madaxweyneyaal hore. waxaa kaloo halkan jooga madaxweyneyaal ka kala yimid wadamada bariga Afrika. waxaana ka mid ah madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Xasan. madaxweynayaasha halkan jooga ee ka yimid bariga Afrika waxa ay gaarayaan ku dhawaad 20. Kawtaray dabcan gadaal baan ka maqlaynaa in khudbadaha haatan soconayaan, waana sugaynaa in madaxweynaha uu dhawaan hadlo maadaama goordhow la dhaariyay. marka bal waxaad uga warantaa dareenka dadka aad kula kulantay halkaas. cabdifaaxow maanta waa maalin aad muhiim u ah horta dalkan Kenya oo ay aad u sugayeen shacabka ku dhaqan wadankan. runtii horta haddii aan kaaga sheekeeyo ama kaaga waramo sida maanta wax ahaayeen, markii aan kusoo jeednay halkan garoonka Kasarani 5:15 aroornimo, waxaa xilligaas wadada soo marayay dad aad u fara badan oo halka u soo lugeynayay waa garoonka si ay ugu yaraan uga qayb galaan xafladda dhaarinta madaxweynaha. 6:15 subaxnimo saacadda Afrikada bari markay ahayd, daqiiqado ka yar markii aan halkan nimid, garoonka xilligaas uu camirnaa oo dadkii way soo buuxdhaafiyeen iyagoo lulaya calanka wadankan Kenya. garoonka Kasarani xajmigiisa cabdifaax waxa uu qaadi karaa in ka badan 60,000 oo qof. iyadoo ay sidaa tahayna waxaa jiray iyagana dad aad u fara badan oo laga celiyey garoonka banaanka lagu reebay maadaama
uu garoonka buuxdhaafiyey oo aanan loo hayn meel ay fariistaan waxaan arkayay saaka ciidamada ammaanka oo isku dayay inay celiyaan albaab ay dad isku dayeen inay soo riixaan si ay xoog gudaha ugu soo galaan shacabka wejiyadooda waxaa laga dheehan karaa farxad waxaa laga dheehan karaa in ay maanta ay u tahay maalin muhiim ah oo ay wada sugayeen cabdiska waxaa sidoo kale xusid mudan in halkan saaka ay jireen amaba ay joogeen koox madadaalo ah oo music iyo heeso soo bandhigayay waxaana nasiib u yeeshay inaan la kulmo fanaaniintii qaaday heestii ufiifu dhadhaafu oo ahayd hees dabcan aad u qabsatay baraha bulshada oo loo qaaday madaxweynaha Kenya William Samoei Ruto inkastoo ay ahaayeen fanaaniintaas wiil iyo gabar haddana waxaa nasiib u yeeshay inaan la kulmo gabadha waxayna ku bilaabaysaa magaceeda Thank you ala shay macna magac maxaa la yiraahdaa Sahara Sulaiman laakiin magac fanaanad dad maxay ugaanaan like Carole halkan maxaa u timid maanta waxaa la jira madaxweyne ka maanta la dhaana Ruto Saganiere waxaa sameeyay ka hees aan qaana biriga campaign grena oo waxaa la jira madaxweyne Nuurasina hadda hees oo iman doona bal horta dareenkaaga ka waran sidee dareemsan ma sha Allah alxamdulillah faraxsan ani waliga meesha ma imaanin heestaad qaaday ufiifu waa hees dabcan qabsatay baraha bulshada dad fara badan oo Kenyan ah ay yaqaanaan ma islahayd marka heesas aad qaadaysay in ay sida u baahi doonto maya had kale comment in heesta la qaadan doona dhammaan adduunka laakiin alxamdulillah waa heestii first aan duube waxaan duube haddana waa la ogaada dhammaan adduunka heesta wax yar nooga qaad dada raaliya waana Kenya tuungane tunasema Hasla Nation tumechoka kunyanyaswa na viongozi wasio na faida ufifu dhagafu apatado tosha sani tosha wametosha Ruto raisi wetu aparuto tosha Gachagua tosha imetosha UDA chama chetu maxaad ka rajaynaysaa dawladdan cusub ee Ruto okay ana madaxweyne Ruto waxaan doonaa aduun saaxda fiirsta dadka miskiiman dhibayso maraan alaabta dukaamada macallimiin meel kasta maxaa la jiray lacagta way badantii dadata dekada forsaaysa maxaan dheynaa inaan dadaal waa tahay waxay ahayd Sahara Sulaiman oo u waramaysay Kawthar Maxamed Cabdullaahi ku sii horeysay oo inoo faahfaahinaysay waxa haatan ka soconaya garoonka Kasarani ee kubadda cagta ee magaalada Taniro halkaas oo xaflad si weyn loo soo agaasimay oo madax badan ay ka qayb galayaan ay ku sugan yihiin warkaasi wixii ka soo koran idaacadaha ee dambe ayaad ku maqli doontaan balse markan ugu yaraan 2 qof ayaa la sheegay in gudaha Puntland ay isku dileen maalmihii la soo dhaafay arrintaas oo loo aanaynayo in ay xiriir la leedahay dhibaatada ka dhalatay abaarta baahsan ee ku habsatay deegaano badan oo ka tirsan Soomaaliya Sheekh Ismaan Maxamuud Xaaji Dirir oo kamid ah guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland ayaa BBC-da u sheegay in 2 qof ay isdaldalay ay kala yihiin nin dhalinyaro ah oo 24 jir ah halka qofka kalena ay ahayd haweeney xaas ahayd falkaasi ayaa yimid kadib markii dadkaasi ay dhaafeen xoolihii ay dhaqan jireen goordhoweed ayaan Sheekh Ismaan ku walaysay khadka taleefanka waxaana marka hore weydiiyey bal inuu inooga warramo abaarta ku dhufatay Puntland bismillahi rahmaani rahiim baaxadda abaartu aad bay u ballaaran tahay deegaanadan waxa weye Puntland oo dhan waa ay ka siman tahay dhan kasta marka laga eego deegaanada tan Puntland intooda badan waxay ay ku tiirsan yihiin xeebo iyo xijiyo waxay ku tiirsanayaan xoolo iyo beero intii waxa weeye hawshii abaartii waa saamaystay xijigii lagama iibsado badihii waa xidhan yihiin xoolihii waxa weeye abaartii baa heshay wax yar baa ka haray duruuftaas oo dhan baa saamaystay waxaa kaloo haddana ugu sii biiray sixir bararkan oo maciishadii ay sare u qaaday intaasi markay isugu biireen dadkii xoolihii waxay ka iibsadaan ay waayeen duruuftii aad bay ugu adkaatay dadkii markaa dhibaatooyin badan iyo saameyn badan bay arrintaasi ku yeelatay xaaladdu sidaas bay u adag tahay oo dadka ay nolosha ugu adag tahay xaaladdu xaalad adag weeyaan xaaladaasi xaalad hadda aan ka sheekayn karo soona waxay tiraahdaa ceelkii gale waa laga wareystaa haddaad qofku saacadaan u tagnay aad bay noo saamaysay dareenkayga bedeshay meeshaasi xaaladdu aad iyo aad bay u adag tahay dadkaas roobkii hadda waxa weye dheerka weli xitaa ma helin biyuhu aad bay u yaryihiin gabaabsi weeyaan meelo xitaa biyaha lahaa biyihii waa ka gureen meelo fog oo waxa weeye ayaa looga keenayaa lacag badan oo waxa weeye aan qofku awoodi karin caqligaagana aanan geli karin ayaa dadka loogu keenaya
dhibaatadaas saamaynta ka dhalatayna waxaana soo gaarayay in dadka qaar ay gaartay xitaa inay naftoodii jaraan taa sax miya cabdifataax sida aad lagu sheegay weeye waa isdul taagnay kolley hadda inta aan xusuusanahay oo anigu aan xaqiijiyey oo isdul taagay ehelkoodii iyo qaraabadoodii aan arkay iyo dadkii khiyaarta iyo odayaasha iyo maamulka laba qof waa nin reer iyo caruur mas-uul ka ahaa duruuftii ku adkaatay ari 200 iyo siyaada waa markii hore ahaa haddana 40 uga hareen wixii marka ay ka xijiyeysan jireen oo waxaweye deegaanada hawaaye xijiga ugu badan buu ahaa degmada caruura weeye gobolka Kardifo ka mid ah sida darteed marka waxay timi ninkaasi inuu istilbeelo ninkan dhalinyarada ah ee isdilay ma la ogaaday qaabku isku dilay qaabku isku dilay ninkan waxa weeye isagoo ogaa oo reerkiisa la joogay xaasku markaa gabadh buu markaa galay ilmo ugu xoratay nin 24 jir ayuu ahaa gabadha markaan waraysanay ninkii adeenkii noo yimi laba guri baa jirto midna waxa weeye loo soo baxo kuleelaha midna qabaa la aado mid buu aaday markii aaday waxa weeye xarig musgariyo isagoo kor ka lusha lagu tagay miya aroortii haddii ninkii la raadin la waayay mise xarig walba ka lushaaba sidee lagu ogaaday marka in ninka duruufta abaarta ka dhalatay uu isku dilay waxa lagu ogaaday dadku markii deegaanka waxaa jirta hadal hayn inta badan duruuf dadkii markii xallin kari waayeen oo macaashadii ku adkaatay dhaqaale waayeen wiilkii la waayey xoolihii ka dhammaadeen hadalladoodii waxay dadku u bateen oo dadku markii deegaanka noo warrameen noo sheegeen inay dadku ku hadaaqayaan ay ku hadlayaan leeyahay nafta tarliisa dhaafiyo weeyaan dadka maxaa ku dhalinaya in ay ku sheekaystaan in ay noloshan ka tagaan mar haddii xoolihii ay dhaafeen dadkani horta waxay ahaayeen markooda xoogsato ah oo xoolaha noqdeen ama xiji ha noqdeen dad noocaasay ahaayeen dad waxa weeye aqoon badan ama nooc kastaba ha noqotee maaha baadiye ku xiran qofku duruuftii noocaasi markay ku timaado waxa weeye waxba isla waayo waa dad inta badan inay wax bariyaan ama inay dadka waxweydiistaan aan u dhalanin ee dad shaqo dhashay weeyaan sheekh Ismaanow maadaama adiga lafteeda aad ka mid tahay guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland oo meelo badan aad soo martay dhibaatooyinkaas aad indhaha ku soo aragtay marka laga soo tago inaad dadka u geysaan dhibaatada ay leedahay in qofka naftiisa uu qaado dadka ma u sheegtaan arrimood baanu samaynaa waxaana waxa weeye waa gargaar inaan u fidinno dadka iyo guddigii socday oo haddama culimo iyo khiyaarba isugu jira iyo maamulba waxaanu samaynaynay marka waxa weeye wacyigelin baanu samaynaynay dadka arrimahaas markaan baraannay waa u sheegnay waxaan adduunyeynay tahay in ilaahay irsaaqadeena qoray aad baan uga waaninay waxaan isleeyahay insha allah laba shay baan isugu darnay hadday noqoto gargaar iyo hadday noqoto wacyigelin ilaahay ma keena haddii abaartan ay sii socoto roobkan la filaya haatan uusan iman maxaa idin qorshaysan wallahi horta kan ilaahay baa horta khayr ka rajaynaynaa laakiin dadaalka haddaan nahay guddigii uu madaxweynuhu magacaabay dadaal xoog leh ayaan ku jirnaa oo hawshii waa la wadaa hawshani hawl marka haddii aan waxa weeye dowlad iyo shacab iyo haddaan la isu kaashanin ama dowlad dhexe ha noqoto ama dowlad goboleed ha noqoto haddaan la isu kaashanin oo hawsha waxay la isugu teginin hadda waxaan ka sheekeynaa xoolo waxa weye dhammaaday iyo dad xabado hadda isleeyahay in iyagan ba aan isdilinba sidoodaba ama macluul wixii la oran jiray meesha ay ka dhalata xaaladdu aad bay wadagtaa kaas waxa waa sheekh Ismaan Maxamuud Xaaji Dirir oo ka mid ah guddiga gurmadka abaaraha ee Puntland oo khadka taleefanka igu warramay Facebook ay qaar badan oo ka mid ah dhageystayaasha raayigooda warbixinta kaga soo dhiibteen midii labaan soo qabtay Badri Cabdullaahi Ibraahim oo ka soo qoray magaalada Boorama waxa uu leeyahay abaarta ka jirta Soomaaliya runtii waa mid saameyn baan ku reebtay dad iyo dunyaba hase ahaatee waxaan ugu baaqayaa dowladda iyo dadka Soomaaliyeed ee wax haysta inay gurmad degdeg u fidiyaan inkastoo gacanta Rabbi mooyaane mid kale aanan lagu dharkin cabdisalaam Kajooje oo ka soo qoray degmada Galdoobna waxa uu leeyahay dhibaatada abaarta ay gudaha Puntland gaartay in ay dad isdaldalaan waa arrin aad looga qaracmo balse waxaan Allah subxaanahu wa ta'ala ka baryaa in uu dadkiisa ka soo gaaro oo uu abaartan aad ka u daran uga dulqaado waxaan qaar ka mid ah BBC ee Facebook BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 2:16 daqiiqadood iyo 50 ilbiriqsi waqtiga bariga Afrika markana sida aad warka caalamka ku maqlayseen boqor Charleska saddexaad ee wadanka UK iyo naxashka boqorada ayaa maanta boqon doona waqooyiga Ireland xilli 10,000 qof ay u barardiiqayaan ay weli ku sugan yihiin wadooyinka magaalada caasimadda waa Scotland ee Edinburgh waxaa la dhigi doonaa kaniisadda St Giles kadibna gelinka dambe ee maanta ayaa naxashka waxaa loo duulin doonaa dhanka magaalada London wararka umurtaasi ku saabsanna waxaa isku soo duuday oo nala socodsiinaysa Faadumo Macalin Abuukar
cabdifataax oo boqorka iyo caruurta kale ee boqoradda ayaa xalay fiidkii waxa ay si gaar ah markaasi usoo arkeen naxashka boqoradda si ay usoo macsalaameeyaan sidoo kale kumanaan dad ah oo baroordiiqaya ayaa iyagu safaf dhaadheer ee ku jira dadka waxaa loo ogolaan doonaa inay hareer socdaan naxashka saacado kooban waxaana markaasi loogu baaqay in ay safka galaan si ay taasi ugu suura gasho oo ay u daawadaan naxashka marka halkaasi la marsiinayo dowladda Scotland iyo golaha deegaanka ayaa iyagu waxay ku howlan yihiin in ay go'aan ka soo saaraan xilliga dadka laga joojin doono in ay ku biiraan safafka dhaadheer naxashka boqoradda ayaa waxaa laga keeni doonaa Edinburgh waxaana gelinka dambe maanta la geyn doonaa Ralph Northolt oo galbeedka London ah iyadoo markaasi ay la socdaan ilaalo sharafeed ka socda boqortooyada waxaa sidoo kale wehelin doonta gabadha boqoradda diyaaradda soo qaadaysa naxashka boqoradda qudheedu waa mid gaar ah waana nooca C-17 loo yaqaano dhowaan waxaa nooca diyaaraddaasi C-17 loo isticmaala Afghanistan markii dadka laga soo daabulay dalkaasi oo xukunka ay qabsadeen Taliban sanadkii hore iyo waliba in gargaar bini'aadanimo iyo hub lagu geeyo Ukraine kadib duulaankii Ruushka sanadkan naxashka boqoradda waxaa berri la dhigi doonaa hoolka Westminster ilaa laga gaarayo maalinta aaska loo sameyn doono 19 bishan oo Isniinta ku beegan hoolka ayaa furnaan doona 24 saac si ay dadku u macsalaameeyaan boqoradda hoolkan waa kan ugu qadiimsan ee qasriga Westminster qofkii ugu dambeeyay ee la dhigay hoolkaas waxay ahayd hooyada boqoradda sanadkii 2002 markaasoo in ka badan 200,000 oo qof ay saf u soo galeen si ay u daawadaan naxashkeeda safafka dadka haatan waxaa la filayaa inay aad u dheeraadaan waxaana halkaasi la geyn doonaa ilaalo heerka garoomada diyaaradaha ah qof walbana waxaa kaliya loo ogolaan doonaa boorso yar dadka waxaa markaasi iyagu laga codsanayaa in ay si wanaagsan u labistaan isla markaana waxaa mamnuuc ka ah dharka muujinaya siyaasadda waxaanan sidoo kale la ogolaan doonin taleefanada gacanta dadku in ay sawiro qaataan amaba ay muuqaal markaasi isaga duubaan qasriga Westminster aad baad u mahadsan tahay Faadimo Macalin Bukare taasi ay warbixintaasi nala socodsiinaysa wixii ka soo koran idaacadaha eega dambe aad maqli doontaan balse markan xubnaha baarlamaanka Galmudug ayaa maanta kordhiyay muddada ay hay'adaha maamulkaas xilka haynayaan oo hal sano ay ku dareen kadibna markii ay wax ka bedeleen dastuurka maamulkaasi 56 xildhibaan oo soo xaadirta kulankaasi maanta ayaa u codeeyay dastuurka in la bedelo mana jirto cid diiday ama ka aamustay haddaba sababta keentay muddo kordhinta ayaan ka wareystay mid ka mid ah xildhibaanadii maanta kulankaasi fadhiyey oo ah xildhibaan Cabdiraxiin Axmed Cigaal oo aan marka hore weydiiyey waxa maanta ka dhacay baarlamaanka Galmudug bismillahi raxmaani raxiim maanta baarlamaanka Galmudug wuxuu yeeshay kalfadhi kulankiisa caadiga ahaa iyo howlihiisa caadiga ahaa ku saabsan shaqooyinkiisa caadiga ahaa waxaan ahayn oo meeshaas ka dhacay ma ay jiraan shaqo baarlamaan oo loo balansanaa ajandaha ku jirtay muddo laga soo shaqeynaya ayaa meesha ka dhacday shaqadaas ajandaha ku jirtay maxay ahayd shaqada ajandaha ku jirtay waxay ahayd ka bedelka dastuurka oo shaqooyinka baarlamaanka oo maalinlaha ka mid ah oo sharcigu uu siinayo qodobkiisa dastuurka 21 warqadiisa labaad qodobka dastuurka ee aad bedesheen muxuu yahay qodobada dastuurka aan bedelnay waxay ahaayeen nacabsta qodobka 32 qodobka 42 qodobka 49 iyo qodobka 54 oo dhammaantood ka hadlayay muddaxilaadka hay'adaha dastuuriga ee Galmudug hadday baarlamaan tahay hadday xukuumad tahay in maaragtay muddaxilaadkaas la bedelo markii hore ay ahaayeen 4 sano loona bedelo 5 sano agaalayno xildhibaanadii meesha fadhiyay oo dhan waa u codeeyay miya in qodobadaas dastuurka ku jira la bedelo oo sida haatan aad sheegaysa laga dhigo xildhibaanadii joogay baarlamaanka maanta kulankaasna fadhiyey oo koorankoodu ahaa 56 xildhibaan ayaa codka haaday ugu codeeyey wax diidayna ma jirin wax ka aamusayna ma aysan jirin xildhibaan Cabdiraxiinow maxay tahay sababta aad dastuurka u bedesheen ee aad sanadkan dheeraadka ugu darteen muddada aad xilka haynaysaan inaan dastuurka horta wax ka bedel lagu sameeyo
waa shaqo baarlamaanka guud ahaan maarata dastuurka u ogol yahay in wax laga bedelana waxaa keentay markaan aragnay hawsha baaxadda leh ee hor yaalla hay-adaha dastuurka ee dowladda galmudug markaan aragnay dibudhaca uu sababay musiibooyinkii coronavirus iyo doorashooyinkii dabada dheeraaday baarlamaanku markii uu arkay baahida ay galmudug u qabto xasilooni siyaasadeed iyo amni iyo mid dhaqaale markii aan aragnay baahida loo qabo daadejinta maamulada deegaanada iyo isku dheelitirka degmooyinka iyo gobolada oo haddaba socoto ee wasaaradda arrimaha gudaha ay wado ood ogtiin gaalkacyo in lasoo dhisay cadaado degmooyin kalena lagu jiro caasimada ay kamid tahay cawdaa kamid tahay waxaa loo baahday in maaragtay wakti loo helo shaqooyinkaas tirada badan oo xukuumadda horyaala dastuurka wax kabeddelkiisana waa xaq dastuuri ah oo baarlamaanka uu leeyahay laakiin cabdiraxiin oo shaqooyinkaas 4 sano lagu qaban karaa ma ahan in loo baahdo in sanad dheeraada lagu daro sanad dheeraada wax la yidhaahdo cabsax ma jiraan waa dib u eegis dastuur oo in maaragtay mar walba la sameeyo shaqo baarlamaan u taalo waaye wasaarad buu dastuurku leeyahay kala soo jeedin ay soo jeedisay baa jiray dib u eegis guud in lagu sameeyo dastuurka annagu marka ka baarlamaan ahaan waxaan qaadanay qodobadan oo la jaan qaadi kara wacyigan iyo waaqican iyo guud ahaan dalka baahida ka jirtay iyo in maaragtay doorashooyinka dalka la mideeyo annagoo maaragtay ujeedkayagu yahay ayaan la qaadanay arrimahaas kulankii maanta 56 xildhibaan baa fadhisay ciddii dayma lahan cid ka aamustima lahan kulligiin waad ogolaateen marka idinkunbaa isu codaya soo maa maya anagu galmudug shacabkeeda oo dhan baan maaragtay matalnaa wax alla wixii masaalixda galmudug oo dhanna waxa weeye baarlamaanku inuu maaragtay wadar ogol ugu ogeeyo waa wax iska caadi oo maaragtay aan inaba yaraatay dhibaato aysan ka jirin maalmihii lasoo dhaafay oo dhan warkan ah in aad doonaysaan inaad ku dartaan waktiga aad xilka haynaysaan suuquu ku jiray marka waa war la sii ogaa in la sii ogaado iyo inaan lasii ogaanin wax weyn oo ay maaragtay annaga culeysoo nagu keenaysa ma ay jirto qorshayaasheenna ayay ku jirtay dib u eegista dastuurka qorshayaasheenna kalfadhigaan ayayna ka mid ahayd ajendaheena mar hadday ku jirtayna waa un shaqo baarlamaanka u taallay waan qabanay cidda ogaanaysa iyo ciddaan ogaanaynay waxaan la dhuumanaynay haddii aysan jirin oo shaqo annaga aan leenahay ay ahaydna maanta ayay sidaan kusoo gabagabooday qodobadii la bedelayna kuwaanay ahaayeen dastuurkana in la bedelo waa wax maaragtay maanta furmay dib u eegistiisana ay soconayso ilaa iyo kalfadhiga toddobaad oo loo ballamay haddii alla idmo laakiin dadka qaar waxay ku doodayaan in hawsha taal ay ka ballaaran tahay dadkii abaar ay haysato amnigii uusan wanaagsanayn sicir bar uu jiro marka halkii aad xoogga saari lahaydeen in dadka wax loo qabto aad dhinacan kale u wacateen oo dantiina keliya dadka noocaas oo kale maxaad ugu jawaabaysaa ku dooday amni darrada ka jirta galmudug waxa weeye cadowga oo dhibaatooyin ku haya ayada laftigeeda way waxyaalaha keenay in dastuurkaani saas maaragta loo bedelo oo wakti loo helo cadowga looga xoreeyo abaaraha jira gurmad bay u baahan yihiin waa wax guud ahaan dalkoodan ka taagan gaar ahaan maaragtay galmudugna waxa weeye wasaaradda gargaarka shaqooyin badan bay ka qabatay wax in laisku xiro u baahan dastuurka maanta wax laga bedelay iyo arrimaha abaarahana ma ay jirto ilamana muuqato maadaama idinka aad wakti ku darsateen maamul goboleedyo kalena ay sidoo kale sameeyeen oo 5 sano ay ka dhigteen federaalkana haatan madaxweyneedkiisu 4 sano yahay soo lagama yaabo midaas inay horseedo in federaalka lafaantooda intay fariistaan inay yidhahdaan annagana 5 sano ka dhigan wixii dee dastuurka ku qoran oo ogolaanaya in qodob la bedelo haddii xildhibaanada dowladda federaalka ay qaataan arrintaasna maaragtay isku waafaqaan anigu arrintaasi wax dhiba inay keenayso uma arko kaas waxa waa xildhibaan cabdiraxiin axmed cigaal oo ka tirsan baarlamaanka galmudug oo khadka taleefanka igu warramaya facebook ay qaar ka mid dhegeystayaasheena ra'yigooda warbixinta kaga soo dhiibteen midii labaan soo qoftay mustafe cumar cabdi oo ka soo qoray cadaado wuxuu leeyahy waan soo dhoweynayaa baarlamaanka maamulka galmudug ee kordhiyey mudaxileedka madaxweynaha iyo hay-adaha maamulkaba kadib markii ay eegeen dastuurkaasi inay wax ka bedelaan oo ay arrintaasi sameeyaan maadaama galmudug ay haatan dagaal qaraar kula jiraan al-shabaab hase yeeshee jaamac maxamed food oo ka soo qoray caynaba wuxuu leeyahay baarlamaanka galmudug ee kordhiyey muddada ay hay-adaha maamulkaas xilka haynayaan marka lagu daro maamulada kale ee iyaguna muddada ay xilka haynayaan kororsaday waa mid muujinaysa in madaxda maamulada ee hadda xilka haya ay doonayaan inay xukunka sii joogaan inta cimrigooda ka hadhay waxaana habboon in madaxda maamuladu ay wakhtiga siiyaan dadka danyarta waxaan qaar ka mid dhegeystayaasha b b c ee facebook dhegeysa b b c Somali mobilkaaga raadiyaha iyo online-ka bbcsomali.com waataa markan bal wararka gobolkaynu eegna ee ciidamada maxalliga iyo weliba saraakiisha caafimaadka ee gobolka Tigray ee waddanka Itoobiya ayaa ciidamada militariga ee dalkaasi waxay ku eedeeyeen in ay magaalada jaamacadda Mekelle ee caasimadda gobolkaasi ku taal ay weerareen oo ku weerareen weliba
diyaaradaha aan duuliyaha lahayn arrintaasoo imanaysa maalmoon kadib markii ay kooxdaasi sheegeen inay doonayaan in xabad joojin ay galaan oo ay qadarin doonaan sababase arrintaasi gaashaanka ay u daruurtay in ay bartilmaameedsadad rayida faahfaahinta warkanna waxay noo haysaa faadumo macali abuukar 2 maalmood ka hor unbay ahayd markii ciidamada Tigray ay sameeyeen koox wadaxaajood ayna sheegeen inay diyaar u yihiin inay ka qayb galaan wadahadallada nabadda ee uu garwadeenka ka yahay midowga Afrika kuwaasoo ay horey u diidanayeen waxaa loo arkay tallaabo wanaagsan oo lagu joojinayo rabshadaha soo cusboonaaday ee carqaladeeyay xabad joojintii 5 bilood socotay waxaa sidoo kale rajo laga qabay in xal waara loo helo dagaalka sokeeye ee ba'an ee labada sano ku sii dhow qaramada midoobay oo soo dhaweysay tallaabada ciidamada Tigray ayaa dhinacyada dagaalamaya waxa ay ugu baaqday inay ka faa'iideystaan fursadda nabadda balse eedeymaha maanta ee ku saabsan duqeymaha cirka ee laga geystay caasimadda gobolka Tigray ayaa waxa ay calaamad u tahay in weli aysan nabadu dhoweyn Addis Ababa weli si rasmi ah ugama aysan jawaabin baaqyada ciidamada Tigray ee xabad joojinta balse waxa ay samaysay koox dowladda matasha kahor inta aysan rabshaduhu soo cusboonaan 3 toddobaad ka hor faadumo macali abuukar aad bay u mahadsan tahay markana ciyaaryahan eegna ee Premier League waddanka Ingiriiska 3 kulan oo ka tirsan oo la dheeli lahaa dabayaaqada toddobaadkan ayaa la hakiyay 3 kulan waxay kala yihiin Chelsea ciyaarta garoonkeeda ay ku qaabileed kooxda Liverpool Leeds United waxay tageen dhanka Manchester United si halka kula dheesho halka Brighton and Hove Albion ay wada ciyaari lahaayeen kooxda Crystal Palace dhammaan 3daas kulan waa la joojiyay ciyaartan ugu dambeysa ee Brighton and Hove Albion iyo Crystal Palace waxaa loo hakiyay baa leeyahay sababo la xiriira in dadkii ka shaqeynaya tareenka ay weli ku jiraan shaqo joojintii oo halkaasi aanay wax shaqaa ka soo ciyaaraha kalena waxaa la ciyaari doonaa inta u dhexeysa 16 iyo 18 bishan September aynu ku guda jirno markaas oo dib loo bilaabi doono tartanka Premier League iyadoo la joojiyay kadib markii ay geeriyootay Queen boqorad Elizabeth II ee waddankaasi UK dhanka kalena caawa waxaa dhici doona kulamo ka tirsan koobka Champions League ee qaaradda Yurub Liverpool waxay ka hortagi doontaa kooxda Ajax Bayern Leverkusen waxay la ciyaari doontaa kooxda Atletico Madrid Barcelona waxay garoonkeeda ku qaabilaysaa kooxda Club Brugge ciyaarihii kale oo Champions League haddaan sii eegnana Victoria Plzen waxay ka hortagaysaa kooxda Inter Milan hase ciyaarta wadag waxay dhexmari doontaa kooxaha Bayern Munich iyo Barcelona oo garoonka Bayern Munich wada ciyaari doona Sporting Lisbon iyo Tottenham Hotspur ciyaar ayaa dhexmari doonta Marseille waxay la ciyaari doontaa kooxda Frankfurt maantana barnaamijkii baafinta iimaanan soo gudbina sababtoo warar badan oo aad u waaweyn oo gobolka iyo Soomaalida iyo caalamkaba ayaa jiray intaas ayaan waqti helin ku soo gabagabeynaya idaacadda duhurnimo waxaynu ballanaa 5 galabnimo inta ka horreysay nabadgelyo